wax runtii muxuu ahaa ii sheegay afka lagu soo koobi karo waxaan xusiisanaa waqtiga dheeraaya aad soo qaadateen waxaan xusiisanaa meelihii kala duunaa iyo aqoontii kala duuneed aad soo qaadateen waxaan rajaynaa ilaahay idankiisa inay noqoto taasi mid aad ku anfacdaan qaranka Soomaaliyeed mid aad ku anfacdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mid aad cadawga iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ku heesta aduga dul qaadaan oo dalkan uu ku noqdo dal amni iyo xasiloonidiisa muxuu qof walba muwaadin oo isku halay karo aad iyo aad u maadsan wasiirkeena gaashaandhigga oo runtii saakay nagala soo qayb galay soo dhaweyntiina iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan oo ugu horeeya taliyaha dugsiga hoggaanka tababarka military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee halkan nagula sugan iyo guud ahaan saraakiisha kale runtii waxa ay dadkaanu noo qabteen wax af lagu soo koobi kara ma ahan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin adinkana waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa mar walba xusiisnaada wixii ay soo qaateen kuwa xusiisnaada marxaladii kala duunaaya ay soo mareen iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ka sugayo ee saaka halkan u taagantiin waxaan idin leeyahay mar kale ku soo dhawaada dalkiina hooyo waqti dhow hadii Ilaahay yiraahdo sida ducfooyinkii idinka horeeyaba ay u shaqo galeen adinkana waxaad ka shaqo gali doontaan qaybo dalka kamid ah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan idin rajaynaa guul iyo caafimaad waxaan ku kulmi doonaa meel kale hadii Ilaahay ogolaado iyo waqti kale aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda soo dhawaada dalkiina hooyo ku soo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage military attachee-ga dawladda walaalahana ee Turki Yilmaz taliyaha Turksom ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada dhammaan askarta dufcadii guutada gorgor oo maanta soo gaartay 26 ah bishii 9aad 2020 waxaan idin leenahay soo dhawaada insha Allah ta'ala waxaan subaxnimadan aroortaan aan u imaanay waxay tahay taliyaha iyo wasiirkii idin imaadeen macnaheedu waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen ee ciidankiina ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan idinku soo dhaweyno waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin soo dhawaada insha Allah ta'ala dufcooyin idinka horeeyay ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhaweynay oo waagi ay idin direynay sidiina oo kale aan u dirnay oo runtii waajibaadkooda soo gutay oo haddana waajibaad sii gudanayo oo dalkaani u adeegay kuwaas ayaad ka mid tihiin insha Allah ta'ala Ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waxa Ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa rantii lagu farxa ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan inaad noqotaan insha Allah ta'ala Ilaahay idinkiisa waa noqonaysaan waa mahadsantihiin runtii sida juhdiga adag aad u bixiseen uguna diyaar garowdeen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed diyaarna aad ugu tihiin inaad dalkiina dadkiina baad xureysaan insha Allah ta'ala hool adaga idin sugaysa oo aad iyo aad u ballaaran ayaa ummadda Soomaaliyeed idinka sugaysa waxaana ka mid tihiin dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waad ogtihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meeshuu ka soo bilaabday General Daawud waagu loo dhiibay sidoo ahaa iyo waayadii damba 8 sidoo noqday maanta waxaan taaganahay dib u dhis ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib loogu dhisayo marka waxaad tihiin base ama bilow aad u wanaagsan oo astaan u ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa waqti dhow oo aad u dhow inaan noqono libaahyada Afrika sidina lagu yaqaanay sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed aad u hooydeen mid la mid ah inaad gaartaan oo aan gaarnaan rajaynaynaa waqtiga dhow insha Allah ta'ala waxaan nasiib u hesheen taliya oo dhalinyaro ah oo idinka oo kala ah oo yaqaana baahidiina dhibaatadiina garab istaagayo oo ka turjumay waxaad kala haysataan wasiiro ama wasiir wasaaradda gaashaandhigga oo nin dhalinyaro ah oo asigana runtii ay ka go'an tahay in ciidankan dib u dhismo inuu ciidankani oo dib u yagleelo oo runtii awoodii uu lahaan jiray inuu yeesho
aad iyo aad u jecel habeen iyo maalin taasoo daliil u ah maanta subaxnimada inaan idiin imaanno runtii waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo oo meesha ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo runtii asigana qayb ka ah inuu ciidankani dib u dhismo hadda leadershipku uusan raali ka ahayn maanta meesha soo gaartay ma soo gaareen marka taas waxay daliil u tahay inuu madaxweynihiina uu diyaar u yahay inuu ciidankan dib u dhismo ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo wasiirkiisaas oo kala taliyay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay marka taas waxay daliil u tahay inaan dhabbadii aan hayno oo ciidankeena dib ugu dhismi lahaa insha Allah ta'ala aad iyo aad u mahadsantihiin xaqiiqdii ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay ciidankooda garab istaagaan maanta saraakiil xigeenaa baxay waxaa noo imaaday isha cutub oo ka tirsan guutada gorgor berritina kuwa kala imaan doona maalmaha xigana kuwa kala noo imaan doona insha Allah ta'ala marka sidaa daraadeeda astaantii iyo waxaan haynaa wadadii waxaan haynaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka Soomaalida waxaan leeyahay oo walaalaheena ee dibadda ee dalka joogaan ciidamadooda inay garab istaagaan dal aan ciidan lahayn dal ma aha ciidanku waa astaanta qaranka marka ciidankeena aan garab istaagna aan u duceyno waana duceysantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh